dab xoogan oo ka kacay magaalada Los Angeles ayaa waxa uu ku sii faafaya magaalada oo dhan iyadoo dawladda Mareykanka ay xoogoodii oo dhan ay isugu geeyeen sida ay dabkaasi ku damin lahaayeen. Intaan u gudagalino warbixintan haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto maasan. Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay sidii wax uga qaban lahayd dabkan xoogan ee ka socda magaalada Los Angeles wixii karaankeeda oo dhan ay sameyn doonto maadaama dabkaasi uu sii xoogeysanayo. dabkan ka kacay magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa sii xoogeysanaya saacadba saacada ka dambeysa waxaana madaxweynaha Mareykanka Joe Biden sheegay in ay damin doonaan dabkaasi oo xoogooda oo dhan iyo karaankooda ay isugu geen doonaan wixii awoodooda halkaasi. Madaxweyne Biden ayaa muujiyay in waqti dheeraad ah loo baahan yahay sidii dabkaasi lagu damin lahaa sidoo kalena loo baahan yahay awood dheeraad ah in la isticmaalo. Waxa uu shacabka Mareykanka gaar ahaan kuwa magaalada Los Angeles ugu qalbi qaboojiyay in gurmad xoogan ay wadaan oo dabkaasi sidii ay u damin lahaayeen ay ku dadaalayaan. Waxa uu amar ku bixiyay madaxweyne Joe Biden in mas'uuliyiinta gobolka ka magaalada ay isugu tagaan sidii ay uga hortagi lahaayeen in dabkaasi uu ku faafo qaybaha kale ee magaalada si hufanna ay uga shaqeeyaan sidii dabkaasi loo damin lahaa. dabkan ayaa shalay waxa uu xoogiisa ka kacay magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalka Mareykanka waxaana dadkii deganaa aaga uu dabku ka kacay ay ka carareen iyaga oo u guuray deegaano ku dhow magaalada dabka uu ka kacay. boqolaal qof oo deganaa halka uu dabku ka kacay aagiisa ayaa waxa ay ka guureen oo sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxeen guryahooda iyaga oo ka cararaya in dabkaasi uu ku yimaado oo uu waxyeello gaarsiiyo. dabka in uu sii xoogeysto waxa qayb ka qaadanaya dabaylo xoogan oo halkaasi ka socda waxaana kooxaha dabdamiska ay xakameyn la yihiin sidii ay u xijin lahaayeen tubooyinka waaweyn ee biyaha ka tuuraya gawaarida waaweyn ee halkaasi doonaya in ay dabka ka damiyaan. dabayshaasi ayaa caqabad ku ah dadka dabdamiska ku shaqada leh ee doonaya in ay dabkan xakameeyaan ama ay gabi ahaanba soo afjaraan. dawladda Mareykanka awoodoodii oo dhan ay isugu geeyeen sidii ay ku damin lahaayeen dabkaasi. waxay u direen diyaarado fara badan iyo sidoo kale gawaarida dabdamiska ka shaqeysa. walina dabkaasi waa ay xakameyn la yihiin kooxaha dabdamiska.